xaflad loogu wanqaliyay degmadnimada Qulujeed ayaa maanta ka dhacday magaalada Qulujeed oo ka tirsan gobolka Awdal. xafladan oo ka soo qayb galeen xubno iskugu jiray wasiiro, xildhibaano, salaadiin, siyaasiyiin, maamulka gobolka Awdal iyo degmada Boorame iyo dadweyne tiro badan oo iskaga yimid deegaanada hoos yimaada degmada Qulujeed ee xafladda wanqalka loo sameeyay. xafladan ayaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, suugaan kala duwan kuwaasi oo loogu damaashaaday degmadnimada deegaanka Qulujeed. ugu horeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo ka mid ah madax dhaqameedada gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley, kaasi oo sanad ka hor lagu caleema saaray deegaanka Qulujeed. waxaana ka mid ah hadaladiisii aad iyo aad bay farxad la yaab leh ugu tahay Qulujeed oo aad iyo aad hawlo badan la soo qayb qaadatay iyo farxado badan oo hore inay maantana aanu qabsadii degmadnimo buuxda u taaganahay. farxad aad iyo aad ballaaran bay tahay aad iyo aad baan haddii waxay tahay waanadii ku bashaaraynaya reer Qulujeedow qiimo badan buu ugu fadhiyaa qofka meel fog xafladaha iyo farxadda laga shaqeyn baa tahay. maalin hore waxaa la arkay anigoo u ducaynaya Qulujeed waxaa loo joogi doonaa farxado fara badan oo iska dambeeya oo maalin walba ilaa iyo maxaan ku raayo intuu sii taagnaan doono ayaa Qulujeed ay ku caanbaxday oo insha Allah loo taagnaan doona tan maansuun ay ka mid tahay. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay salaadiin kale oo ay ka mid yihiin Suldaan Ibraahim Dacar, Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal, Suldaan Muuse Cilmi Dugsiye iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda degmada Boorama iyo gobolka Awdal oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal, kuwaasi oo dhammaantood xusay sida ay ugu faraxsan yihiin xafladda degmadnimada Qulujeed ee maanta lagu qabtay magaalada Qulujeed. waxaana aad u soo dhaweeyeen wanqalka xafladan lagu wanqalayo degmadnimada Qulujeed, taasi oo hore u magacaabay madaxweynihii hore ee Daahir Rayaale Kaahin muddooyinkii ugu dambeeyay. waxaa kaloo halkaasi hadal ka jeediyay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo siyaasiga weyn ee hore u ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Faarax. waxaana ka mid ah hadaladoodii hay'adda degmada waxa la wixii dawladda kaga xidhan inaan habeen iyo maalin isu taagno, taasi ballan weeye. talabaad sida loo sheegay markay degmadu beero leedahay, ay xoolo leedahay, ay strategic location tahay, goob istiraatiijiya oo afka ku haysa dal aan xuduud lahayn oo populationkiisuna badan yahay. markaan idinku dardaarayaa waxa weeye in degmada maamulkeedu xiriir wanaagsan la yeesho degmada ay dariska yihiin dalkaan dariska nahay oo bare ama dambal midkay doonto ha noqoto. iskaashi ganacsi iyo mid dhaqaale iyo mid amni inay idinla yeelataan ayaanu idinku dardaaraynaa maamulka degmada khaasatan iyo mujtamaca meesha ku noolba. taasi qodob haddaan awal ku xugun maayo waayo waxaa hadlay rag badan oo habtaamo ah yaa naga horeeyey oo ka hadlay waxyaabihii halka la isugu yimid. midda kale anigu intii aan odhan lahaa xildhibaanka baarlamaanka ugu dacyar waxaa la yidhahdaa waa Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle. baarlamaanka Soomaaliland ninka ugu dacyar weeye. intii aan odhan lahaa isagaa aniga ii yidhi waxaa leeyahay khatal khayrak baaraka allaahu fiik. isaga keligii ma hadlaye sheekhii baa ka dhex hadlayaan u malaynaya. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dib u dejinta Somaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan, wuxuuna ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin degmadnimada cusub ee loo wanqalayo magaalada Qulujeed. wuxuuna ku dardaaray dadweynaha ka soo jeeda deegaanka Qulujeed inay u guntadaan sidii ay u horumari lahaayeen degmadnimadan cusub ee Qulujeed. waxaana ka mid ah hadaladiisii walaal wasiirada xisbiyada intuba way isku raaceen tala qaran baris inuu ka qayb gasho Somaliland maadaama ay dadka qaranka ay ku jirto. taayna waxay ahayd wax xukuumaddu ay qaateen ma wax Somaliland lagu darayo dalka lama. Somaliland waa muqadas, jiritaankeedu waa muqadas, laakiin waa tala qaran oo loo leeyahay weeyaan. intaasaan ku soo gabagabaynayaa aad baanad u mahadsantihiin.
sida fiican aad u dhegaysateen dardaaranka reer quljeedna fuliyaan degmadan qulujeed ayaa waxaa hore u magacaabay madaxweynihii hore ee daahir rayaale kaahin sanadkii 2010 taasi oo ilaa markii la magacaabay aan lagu qilin ayaa maanta noqonaysa wanqalkii ugu horeeyay loo sameeyay degmada qulujeed waxaana noqonaysaa degmadii lixaad ee ka tirsan gobolkan Awdal Haashim Sheekh Cumar Good Somali Sat TV Boorama